الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وعشركي كنتونات كتاب كان عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن القيم رحمه الله صدقه أنواع بين هذا قيبه كردوان سيقود هذين لبا جروب وقيب سنتايو صدقة النافلة وصدقة المفروضة صدقه إسكاء السنة هي صدقة واجبة marka sadaqada waajibkii waa zakada xoolaha laga bixiyo wixii ilaahay ku siiyey ee la bixinayay waa waajib iyadu sadaqada sunnada ihi awjuhul ihsaan oo dhan bay gashaa yacni dhammaan wax alla wixii wanaag ah ayay noqonaysaa oo fuqarada iyo masaakiinta loo siiyo ama xoolaha noqo oo xoola aan ahayn markaa zakadii aan ahayn islaamkuna wuxuu booriyey in wax la bixiyo alcataa ayay maartay uu buuxiyay nusuus badan ay ku soo aroortay rasuulka sallallahu alayhi wasallam soo marinay as-sadaqatu tudfi'u ghadab ar-rabbi waxay maartay sadaqadu ay maartay damisaa allah cadhadiisa ilaahay oo cadhooday bay cadhadiisa damisaa marka sadaqada tadawuca waxay saasay way wanaagsan tahay nooc kaliya maana qaybo badan bay xitaa waxa soo galaya rasuulku sallallahu alayhi wasallam inuu baraarujiyay macruufka oo dhan kullu macruufin sadaqa wax kasta oo wanaag ah sadaqo noqonaya xadiidkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam kullu macruufin sadaqa wa inna min al-ma'ruf an talqa akhaka biwajhin talq والفرس يعني وحاكم مده حتى walaalka inaad kula kulanto waji furfuran oo farxadi ka muuqato waa sadaqa weeyaan xitaa waxaa sadaqa abuuri sallallahu alayhi wa alihi wasallam walaalka wadaantiisa yacni inaad maaragtay biyihii oo kale qofkii fiinay akhiika aad maaragtay ugu gedido oo biyo aad siiso ood ka waraabinayso waxay noqon iyadoo sadaqada waajibka iyadu waa midda zakada wey marka iyadu shuruud bay leedahay oo iska bixi uun maahe zakadu dee shuruud mucayana bay leedahay dad la siiyo oo gaarana way jiraan ilaahay subxaanahu watacaala waa kii yidhi inama asadaqaatu lilfuqaraa 8 qaybood baa zakada sideedaba la siiyaa inama asadaqaatu lilfuqaraa marka fuqarada walmasaakiin dadka fuqarada iyo miskiinka iyo faqiirka waxaa la yidhahda ida ijtamacaa iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca qaacida usuuliyaa jirto oo haddii hal meel lagu wada sheego bal u fiirsa lilfuqaraai walmasaakiin sida hadda aayaddu u sheegtay laba macnay kala yeelanayaan laakiin haddii midkood uun la sheego kii kale wuu soo hoosgelaya hadda markii meel lagu wada sheego faqiir waxaa la yidhaahdaa waxa uu u baahan yahay haaf wax ka yar yani waxaad u baahan tahay barhkii wax ka yar baad haysataa miskiinna waxaa la yidhahdaa waxaad u baahan tahay barhkii wax ka badan baad haysataa laakiin wixii ma wada haysatid marka tacriifkaasi marar horena waan soo tacriifino waan soo sheegnay dadkii duruustan ku xidhnaa waxaa kamid oo kale walcaamiliina calayha dadka la siiyo sadaqada waa dadka kasoo shaqeeya zakada oo intay baxeen iyagu soo ururiyey kuwa qalbigooda lasoo dumayo waa la siiyaa oo maaragtay kaaba qabiiladii baa la yidhaahdaa iyo dadkii hadda soo islaamay iyo waxaasoo dhan way soo wada galaan yani kaaba qabiil waxaan leeyahay qof ummad dhan ay daba socoto oo odaygii reerka ah oo daba guuraysa xawaa'ij badan buu leeyahy isaguna waxaasku dadka ku kala waxaynayaa ummadaas ugu soo jiidaya dhibkooday kaga yaraynayaan islaamka dhibkii bay kaga daynayaan marka taasoo kale iyagana waa la siiya wa fi riqaabi adoon hadduu jiro adoon mukaatab baa la yidhahdaayo waxaa lagu yihi maalan addoomaha waagi hore jiri jiray qayb kamid a waxaa jira la yidhaahdo haddii ad intaa ii keento xor baa tahay marka taasoo kale hadday jirto waa in la siiyo wey walghaarimiin dadka daymaysan waa in iyagana la siiyo si ay zakadaas ugu dayn baxaan dadka oo jihaad fii sabiilillahi ku jira zakada waa la siiya ibnu sabiilka qofka musaafirka ana zakada waa la siiya xitaa hadduu xoolo kuleeyahay wadankiisii hadda wuxuu meeshii ku gaaro waa in la siiyo fariidatan min allah wallahu caliimun xakiim ayib haddaba alla subxaanahu watacaala wuxuu farad yeelay zakadii xoolihii ayuu ku farad yeelay sanadkii labaad ee hijriyada ayaa ilaahay farad yeelay wujuubka zakadani qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaacu lummaba way ku sugan tahay wa aqiimu salaata waatuu zakaata rasuulku sal alla alay slam markuu diray mucaad ibnu jabal uu yiman u diray wuxuu ihi u sheeg in ilaahay ana allaha iftarada calayhim sadaqatan fi amwaalihim tu'khadu min aghniyaihim waturaddu calaa fuqaraa'ihim in xoolo laga qaadayo ilaahay ku waajibiyey oo kuwa aghniyada laga qaadayo kuwa fuqarada ana la siinayo arrintaana u sheeg wazakaa marka zakadu
kuma waajibta baa le ilaa qofka mukallafka ah ayay maaragtay ku waajibaysaa idaa taxaqaqa shuruuط mucayana matalan islaam iyo buluuq iyo caqli iyo xuriya. marka haddii qofka islaam uu yahay waa inuu zakadii bixiyo, hadduu qaan gaadhay waa inuu bixiyo, caqli hadduu leeyahay waa inuu bixiyo, xuriyadii iyo uusan adoon ahayn iyo inuu xoolaha isagu leeyahay sanadna uu kasoo wareegay wuxuuna uu dhan yihiin zaka inay dhan yihiin, yani inay xooluhu zaka gaara. waa inay kasoo hadalay oo darsigii dhannaa oo bishii dhaweeda muxarim aan aqrinaynay 30 jilsa taqriiban ahaa, waa inagii kaga soo hadlaynay zakada iyo shuruudeeda, ku noqon mayn. haddaba muhiimaddu waxa weeye zakadaas oo ilaahay subxaanahu watacaala intaasoo dhan ku fardiyey waa inaa iyadana la bixiyo. qofkii diidana wuxuu noqonayaa oo diida zakada wujuubkeediina wuu ku gaaloobayaa. ilaahayna subxaanahu watacaala adilo aada u xanuun badanna waa inagii soo marnay oo kitaabkii hore inoogu jirtay. wa jazaakum allah khayr wbaaraka allah fiikum.